dadka kugu xiran CKO maxaa kugu dhacay CKO see camal CKO maxabad dumaasho keentid dad badan ku dhahayeen waxaan ku leeyahay Prada hambalyo ilaahay maaragtay hay siiyo awlaad khayr qaba taageerahayga waa sida qoyskayga waxay ii dhiirigeliyaan sida military waxay ila taliyaan sida aan u daalin ila soo rabkayga wax ka baa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu wali salaam dhammaan asxaabtayda qaaliga meel kasta aad joogtiin soo dhawaada channelka dawal soo jibraan qofka ilaa hadana qof kale ma waa jibraan tiisigaas soo dhawaada muuqaalka loo cusubada cusubtay soo dhawaada dawal joogtiin caadada oo maastay guys soo dhawaada muuqaalka loo cusub aad iyo aad horta runtii intaan u guda galin muuqaalka aan idiin wado maanta inkastoo ka duwaya muuqaaladii hore uu ka farxad badan yahay oo dad badan aan ogahay inay soo hambaliyeen doonaan waxaan rabaa horta inaan u mahad celiyo asxaabtii u dambeysay igu soo beertay janaalkayga Asjabrani maasha Allah janaalkayga soo booqday markaas iyadana daawaday haddana subscribe-ka ii saaray maasha Allah aad iyo aad u maastiin soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada channelkiini cid ii kale ma leh maasha Allah waxaan ii leeyahay si aad ula socotid barnaamij kasta oo aan soo geliyo maasha Allah sida subscribe ku saartay haddana gambaleelka dhag u siiso oo u furo wuxuu ka caawinayaa markaas iyada in video kasta aan soo geliyo oo markaas ku soo dhaco laakiin haddii aadan gambaleelka u furanin waxaa laga yaabaa markaas iyada videoga caaw soo gelinayo inuu ku soo gaaro dhowr saacadood kadib ama uu ku soo gaaro biri markaas iyada waxa waaye mar dadkii dhammaan ay wada daamadeen ayuu ku soo gaarayaa markaa noqo qofka u horeeya ee daawada aad iyo aad youtube video kusoo soo geliyo noqo qofka ugu horeeya oo daawada okay guys soo dhawaada muuqaalka loo cusub haddaad cusub tahay mar labaad mar saddexaad walaan macaan soo dhawow aad iyo aad maanta maxaa ii wadaa maanta waxaan ii wadaa run ahaantii mawduuc ka duwan mawduucyadii hore aad iyo aad mawduuc ka duwan mawduucyadii hore waxaan ii wadaa mawduuc ka duwan mawduucyadii hore maasha Allah sida aan ognahaybo qof kasta oo dhalinyaro ama qof kasta oo bini'aadan hami u leeyahay hamigiisa koowaad waa inuu wax qabsado markuu wax qabsadana hadhowtii waa inuu mustaqbal samaysto okay waa inuu mustaqbal samaysto okay quraantii mawduuca ay wado uu ka duwaya mawduuca marka ay leeyahay waa mawduuc ka qiimo badan mawduucyadii kale aan ugu soo gudbin jiray maasha Allah waxaan rabaa inaan meeshan ugu hambaliyo the one and only walaalkay CK the father of YouTube haddii aan dhaho qofka kaliya ee youtuberada Soomaalida inta youtuber ee Soomaalida qofka ugu subscribe-ka badan leh marka ay dhahay YouTube waa YouTubers waa qofka kaliya marka YouTubers ay si wax soo gudbiyo oo markaas soo tabiyo isaga nafsad ahaantiisa oo aan isticmaal muuqaalo kale oo dad leeyihiin waa qofka ugu subscribe-ka badan leh markaas iyada wuxuu soo galayaa qofka koowaad markaas ahna YouTuber kaliya ee ugu horeeya Soomaali weyn CK oo dumaashiday oo namaal oo aqal oo meerkooda ka dhacay sida aan filayo ama leysisiiyay dhankaas Europe waxaan filayaa inuu ay isku meel joogaan ama ay Europe la isla joogaan maasha Allah my brother wax badan horta asxaabta ama shacabka kugu xiran ama dadka kugu xiran CKO maxaa kugu dhacay CKO see camal CKO maxabad dumaasho keentid dad badan ku dhahayeen wax badan barafuun la isku buufisay runtii barafuun gorta rag badan uga tagtay oo barafuun ilaa hadda isticmaali doona maasha Allah waxaan ku leeyahay Prada hambalyo ilaahay maaragtay hay siiyo awlaad khayr qaba oo aan maasha Allah ah wiil iyo caano gabar iyo caano maasha Allah runtii inta badan CK meherkiisa ama hambalyadiisa waxaa ka soo hadlay dad badan oo social media qeybaha kala duwan uga soo hadlay sida Instagram-ka loogu badnaadee ayaa inta badan looga soo hadlay dad badan oo soo hambaleeyay xamdi bilan ka mid tahay adiga inta kuma soo koobi karo fanaaniin youtubero dad bulshada magac ku leh dad aad iyo aad u far badan bulshada dhalinyarada dhammaan meel kasta joogaan wiilal gabdho isugu jira markaad aragtay Instagram-kooda waxay aad iyo aad hambali ugu dirayaan CK iyo dumaashida namaal marka waxay leeyahay insha Allah ta'ala hambalyo siiyo awlaad
khayr qaba awlaad baari ah awlaad reaction bixiya maasha Allah ah kaliya laab intaasna waa iska kaftan ugu dambeyntii CK dhan CK waa tigay CK yani waa aqal galay CK uu ka xarooday ru'aantii waxaa jira dad badan oo YouTubera dhalinyaro oo markaas iyagana hami u leh ilaahay waxaan u baryaa qof kastoo hami leh inuu hamigiisa ilaahay u fududeeyo qof kastoo rabo inuu guurso ilaahay guurka ha u fududeeyo qof kastoo muraad leh ilaahay inuu u fududeeyo qof kastoo bil aadan wuxuu sugaa maalintan camal inuu nolosha ka soo baxo oo noloshan kale uu soo galo ru'aanta hadii loo fiiriyo noloshii hore iyo noloshan iskuma qalmaan kulta waa adoo ka soo baxay nolol boorina oo nolol wax kasta leh oo nafaqo leh oo adduunyo leh oo maaragtay aad nolosha dhabta ah soo galay maasha Allah marka lagu dhahayo guurka laga hadlayo guurku waxyaalo badan ku jira faa'iidooyin badan uu leeyahay qofka dhalinyaradana inuu guursado ayaa u fiican hadduu markaas iyada uu awoodo maasha Allah CK waxaa leeyahay my brother hambalyo kolto wax badan reaction waa soo bixisay wax badan barafuun waa reaction ku bixin jirtay adoo raadinaya maxaa lahaayay duwaashi waa soo bixisay balse maanta waad haysataa waxaan ii leeyahay ilaahay ha isku barakeeyo aad iyo aad waxaa jira rag kale YouTubera oo wali garoomada aan soo gelin haddii ahaan lahaayeen rag kale YouTubera la yaqaano oo markaas iyagana la rabo iyagana inay garoomada soo galaan oo CK meeshuu maray ay soo maraan aad iyo aad inta soo gabagabeynaya muuqaalkay fadlan cusubta ay soo dhawaadaan hore joogtaan aad u maastay